يكون الواد كدرتو إلى هبا نعكو ديقي دلكيو دلكيو قبو يكون الواد كدرتو إلى هبا نعكو ديقي دلكيو وبيا الدردرائيو بدوينتا دوشيحي دوشادا فرحت لاغو دكيا دلكيو وبيا الدردرائيو فرحت لاغو دكيا دلكيو إفكامل لداودو دلحيس أديغا كولا سيمان دلكينو لواي روحي أديغا كودران وغو وان إسدينو تريدان ونعبهاي وغو وان إسدينو تريدان ونعبهاي إفكامل لداودو دلحيس أديغا كولا سيمان عدلكينو لواي روحي أديغا كودران وغو وان إسدينو تريدان ونعبهاي وان إسدينو تريدان ونعبهاي lagu ducaysta dalkaygu la daristo dacdaadii ku dagta qulubtee dalkaygu inta lagu ducaysta dalkaygu la daristo dacdaadii ku dagta qulubtee dalkaygu معدنتا نغدا سونيو عدادو كعاني دلكيو درتابا دماعيغا أولايا دلكيو معدنتا نغدا سونيو dalkaygu dartaada damaaciga ulaaya dalkaygu ifkaamil ladaawado dalxiis adiga kula siman dalkaygu lawaaye ruuxii adiga ku daran ugu waan isdayno dunidaan u necbahay ugu waan isdayno dunidaan u necbahay
ifka meel la daawado dalxiis adiga kula siman dalkaygu la waaye ruuxii adiga ku daran ugu waan isdayno dunidaan u necebahay ugu waan isdayno dunidaan u necebahay tahay dalkayga ninka adiga ku daran dunida oo nacibla ifka meel la daawado dalxiis adiga kula siman ugu ruuxii adiga ku daran dunidan u nacbahay waan isdayno dunidan u nacbahay si wanaagsan kulli qofka dalkiisa cadow ku noqday in la isdeeyo way mudan tahay waa tahay heeskaasi waxay daafur u ahayd barnaamijkii fanka iyo suugaanta oo qadarka iyo martuu ku yahay waqtiyadii dambe qadaro heesi calaalka baad u baratay inankii waxaan isir caashaq maala la tagayo heesi buu isku iloobay maxaa jira marka hore caashaq wuu jiraa marka xigtana dee qof aan dareen lahayn ama aan damqasho lahayn dee geed aan miro lahayn si wanaagsan marka dareenka aan gudbinaynana kulli waa dareen ama mid aniga iga yimaada ama mid shacabka ka yimaada inta waa tahay markii dambe waxaad la soo baxday dardar faneed oo aad u qurux badan Muqdisho iyadoo ay fan u baahan tahay ay fanaaniin u baahan tahay ayaad dhankii fanka ka bilowday muddo waxaad ku sugneed dalka Malaysia oo aad shooyo ka qabatay ka waran dareenkaaga maadaama adiga oo qurba tagin meel dheer Soomaali muddo badan oo dalka u baahnay fan Muqdishona aysan fanka jirin aad fanka ka bilowday markii aad tagto qurbo oo Soomaali ay ku nooshahay halkaasna dadka inta badan iska shaqeystaan waxna iska bartaan dareen ahaan adiga sidee kula ahayd inaad show ku qabato Malaysia shacabka Soomaalida halkaas aad u tagto dareenka iyaga ee ku weydiinaya midka la qaybsanaysa sidoo ahaan waa easy qof walbo dee markaas shacab ama Soomaali kamid adiga ku taageersan wuxuu u baahan yahay si uu kula kulmo anna waxaan u fududeeyay wadada ay kula kulmi lahaayeen waan u tagay waan ku kalsoonahay mar walba inaan Soomaali heli doono si wanaagsan marka dhalinyarada halkaas ku nool qaarkood muddo hore dalka ka tagay ama kuwa halkaas iska nool ma kulanteen waan kulanay shacbiyad fara badan waxaa jiray inta badan aan dalka gudihiisa imaanin ee xaggaas iga daawada ama iga la socda markaan arkayna kulli waan ku farxay ayagoo si fiican ii soo dhaweynaya ama ka soo qayb qaadanaya showga si wanaag markii aad Malaysia tagtay wacyigelinta fanka markii laga soo tago adigu ahaan ma uga warbixisay qurbo joogta halkaas joogta sida dalku horumaray amaanka ka jirta dhismaha intaba wallahi taasna waa easy sababtoo waxay ka bogan karaan ama ka dheehan karaan muuqaalada aan gudbinayo walow uusan ahayn mid markaas muuqaal xuna si wanaagsan gudbinaya in wadanka uu dhisan yahay sidii shalay ku ogaay inuu iska bedelay marka masajidaasan u gudbiyaa ani meelaha qurqurxoon oo kale yaan ka qabtaa u gudbiyaa si ay u daawadaan u arkaan si wanaagsan ma sha Allah dhanka kale show aad Kenya ku qabataa jiro horaantii sanadkii dhamaaday ka waran ayagana showyadaas sidoo kale ayaduna Soomaali badan meeshaas joogtay fanaaniin badan sidoo kale way joogaan fankana aad baa looga xiisayaa marka showgi igu horeeyay ama first time inuu ahaa asagan jeclahay iyaguna dadka badnaa si wanaagsan waa wax dhiirigelin ii noqday aad iyo aad wixii fankaaga dhiirigelin u noqday ahayd waa tahay kulley markii aad Kenya ka timid oo xamara timid muddo xamar joogtana wasaaradda warfaafinta oo telefishinka qaranka uu kamid yahay wuxuu ku gudoonsiiyay fanaanka ugu fiican Muqdisho bilad iyo shahaado sharaf intaba dareen ahaan sidee u aragtay in lagu xusho fanaanka ugu qiimaha badan ama ugu saameynta badan magaalada Muqdisho ee muuqaalo qurux badan soo gudbiyo ee qaranka ku gartaan sidoo kale abwaaniina ay gudoonsiyaan oo goobta ku sugnayd horta waa maasantahay way jirtaa taasi waxaan kaloo aad aan u salaamayaa agaasimaha iyo dhammaan muxuu ahaayay dadkii soo qaban qaabiyay barnaamijkaasi iyo abwaaniintii iskugu jiro hobolada waa bari run ahaantii farxad gooni ay ahayd habeenkaas ma aanan filanaynin aniga gudayda marka waxay ii sii noqotay markaan arko dhiirigelin fanki shalay lumanay in maanta ay soo celinayaan dadkii hore nagu horeeyay waaweynay inay maanta soo nooleynayaan marka waan ku farxay marka wax dhiirigelinay in aad taayaduna
aad iyo aad dhawaanta muqdishaad ka tagtay waxaad tagtay Kenya Nairobi iyadana mid taa la mid ah waxaa lagu guddoonsiiyay abaalmarintaas maxay kaaga dhigneed adi tii hadda aad sheegayso kale la mid tahay laakiin waxay kaga duwan tahay kaliya codeen tan hadda abwaaniinta iyo mas-uuliyiinta waaweyn ay fankii hore ay garatay iyo wasaaradda sida aad sheegaysay tanna waxay la mid tahay ayadiyo fanaaniin badan igula jireen aan la tartamay inaan kaga guuleysto weliba qaarkood ay igula sugnaayeen si wanaagsan oo goobta ay bilad kula qaateen Nairobi joogeen ayaguna bilado markaas la siiyay aniga iga hooseeya laakiin soo dhaweeya balse waxay i guddoonsiiyeen best of the year laakiin anigu qodayda ma isdhihi kari waa tahay weli waxba ay sii dhimansanahay marka dhammaan Somali Glamour Award ayagana aad baan u salaamayaa dhalinyaradii qaban qaabisay oo markaasi codeyntaasi sameeyay waxaa kaloo sharaf mudan oo maanta aan wax ku ahay shacabkayga ayaga foodkaasi siiyay codkaasi oo ii food gareeyay maanta wax sharci lagu kala baxay waaye haddii fanaan kale maanta uu ku guuleysan lahaa uu heli lahay marka waa codeyn aan dhanka shacabkayga ka helay هذه قدر إبراهيم قدر إبراهيم قدر كيو كل كيو وانانس إن كيو ياكو بحش عابا مسوالت ما كيو وحيد يران صاحبنا هاي وقع عرب كيسات كاي مركا كي ديساس يكون بحذي إن أنيس أهان بس ما قاعد يصحدا عني ومحمد قدر يلبحن فاميلي كيجا صح مركا وكاسا عيال سيناينا واتهاي أو دنكي يخشيد إن بلوغي فنك هذا واحد كوبلاوده هي سراب بس هذا إن هي سعادة ياد قادا كورن إن راب كإيه هي سعادة محكو كلا دوينه إن والله هرت إن تاسو حنكون حسام مركب ولا صاحبكي هذا التيفي إن لجوجا إن جو جوجنا أحمد عبد الولي والله يغني دي جي فريش ما قاعد أنا جا وبحيي أنا جا قصة قدر وبحيي سيد كيو لدان وده أصلا دي جي فريش وهو أنن أد ودة البدن إن وان كجمع هذولين يا قفك هورين هست أن صار أما أتكي إجدوبا أما إن رجدي يو لحن كمركز اسمي موسيقى اسمي أما مصلح هوري صار أصغرها إن وحاول إن بدن هروا وشيء لكن هذا ما أنت أصغر جوجو مغلا وهذا ما أنت تيفي يقول سوقي هاي أحمد عبد الولي أدبن وما هتعلينا يا ما أنت هير كان أنجارنا أصغر كل قيب كوين ما أنت اسمه لي قفك عليه قفك وعاي عضك يقدو يقول رياض عاي فلي باللابتوب كيس يقول رياض وكالا وعاوز صاحبك هذا ما سنتها وانا محو ايتي ميلاوي دوني ان شاء الله كلي وصاحبكي غاليga marna garabkayga midig iyo sidoo kale walaalkiisa asna daahir jay oo hadan nugula soo studio marka dadkii ila soo tacaali ahayn iyo snaag iyo Jeezy Boy team badan ahayn marka dhamaantood aad u salaamaya ayagana saaxiibadeeda Adnaan oo asagana TV-ga kamid ah si wanaagsan marka dhamaan waa ragii ila soo jabhaday oo aan halkan ku xusay maanta oo aan kaga mahadcelinayo sida ay maanta garab weyn iiga siiyeen fankeyga marka heesta ugu horeysay taas ay ahayd aan sameeyno oo waliba muuqaal u sameeyno anagoo wada dhan teamkaas oo dhan waxayna ahayd hees la yiraahdo ma hurdo mana harsado si wanaagsan sunta caashaq baa saacad badan igu saaqday aad shalay iyo maanta sidaan ahay ma aqaano waata ma hurdo mana harsado si wanaagsan marka raabka iyo maxay ku kala duwan tahay wallahi waqtigaas wuxuu ahay waqtigii burburka laga soo laabtay dhalinyaradana inta badan waxay ka imaadeen qurba joogta wadanku badnayd waxaa la muujin jiray markaas raabka iyo muusiga dancerka iyo jam wax la yiraahdo la xiisayn jiray muusigada la wadoodo marka oo aroosada inta la taga la kala kicinayo samaacada oo soo marna waxaas ku soo jabaadeen marka waxaa jirta muusigiyo beatskooda xoogan oo markaas ilmaha raab ay ku tirinayo qof walba heesaha degan aad loo maxaysiinayno markaas anagoo team ahaan isku tashanay kulay nin walba tijaabo galay waa baasha adi raab ee noo noqotay markaan raabka soo galanay haddana levelkii waxaan arkay dadkii waaweyn inay dhageysan karaan heesihii degan oo ah dadkii hore
hoboladeen hore allah u naxariistay Cumar Dhuulo Cali iyo Suleyman Tuga iyo dadkaasi tacamul heesay inay dadkii la qabsan karaan erayadan ay fahmi karaan ya muddo mana harsado iyo hadda adiga fahmayso waa another level maahan waa wax iska adiga hadda team age-ka hadda socda marka waxaan isdhahay taas wanaagsan marka leveladaas inaad gashid marka hadda waa kaas leveladaasna dadka dhan la wada qabsadeen aad iyo aad oo dhalin iyo aysan kan lahayn badda waxaa tahay fanaaniinta isku kalsoon ee codkooda in si live ah heesaha ugu qaado kale dhanka kabankana waad isku fiican tihiin markii heesaha live ka lahaa yaa jeceshahay fanaaniintii hore inaad heesahooda kaban lagu tumo أنا waxaa jeclahay horta Cumar Dhuulo Cali oo aan aadna u dhageysto waxa way qofna fanka wuxuu ku galaa heybad qofna wuxuu ku galaa asagoo talent Ilaahay u siiyay iyo tababar uu sameeyo markaan heesahan hadda ku soo biiray sida ay sheegaysa degan waxaan ka bilaabay inaan ku waaweyn aan dhageysto kabanadii sababtoo step by step leeyahay marka kuwa soo gudbo kabanada ah waxaan ogaaday inaan u gudbi karo hadana kuwii muusiga ahaa oo hadana markaan kaban ka soo baxay kuwii muusiga hoteeladii markaas si magaalada ku cusbaayo kala aan live ku ugu shidi jirnay aniga iyo team kale oo ayaguna markaas jireen marka waa kaas adiga waxa waaye kor inaan ka soo bilaabay markii igu qasabtay aan ilaa hadda sii socdo markii kabanada sidaas ku bartay dhanka laxamadana waa isku fiican tihiin kolley heestii gabdhaha Soomaaliyeed adiga laxamay kolley laxamada dadka inta badan waxay dhaxaan aad u adag tahay muddo inta lagu muraajaceeyo waqtiyo badan ay qaadataa laakiin adiga heestaadii gabdhaha hadii aan tusaale ahaan u soo qaato waqti intee la eega kugu qaadatay laxankeedina sameys wallahi mis dhihi kari waqti badan way ugu qaadatay waqti yarna way ugu qaadatay sababtoo ah sidaan hore kugu sheegay qofna heybadu wax u qaataa qofna aqoon uu leeyahay u sameeyo si wanaagsan ani markaasii waa markii igu horeysay waxaan isku dayay inaan wax sameyn karo heestina ay tahay hees macnaha markii ay weligeed jirayso nuxur ay leedahay adiga waxa fiican inaad taariikhda adiga aad wax ka lahaatid dadka markaan qaaday laxankiina inaan aniga sameeyo qofna uusan ii sameyn erayadan waxaa sameeyay abwaanmaha duuday la yiraahdo abwaanka heesta dalkaygu sameeyay sida hadda heestaas taariikhi ay u tahay ee tanna u tahay marka laxanka sidaasaan u sameeyay isku dayay markaan dhageysiyay abwaanka iyo dadkii hoboladii iga waaweynaan waxay dheen waa sameyn kartaa laxan macaan sidii markii ugu shirkashay si wanaagsan waa tahay heeso kale oo laxama u sameeyay marka ma jiraan oo heestaas ka dambeys badan yihiin dhalinyaro u sameeyay saaxiibo aan ahaa jiray laakiin isku ma qorin sababtoo ah laxanka hadaad sameynayso muusiga hadaad lagu tumay codka adiga asaaraysa erayadana asaarto wixii laba naqanaan si wanaagsan marka heeso badan u sameeyay way jiraan laxankooda hadda dalkayga kale iyo hadana ana toosiyay qayb ka toosiyay way jiraan fanaaniin kale oo saaxiibo aan ahayna aan u sameeyay marka fanaaniintaas yaa kamid ah waxaa kamid ah yar hadda iigu horeeyay programkan kii ka horeeyay san filay Mahad Meesar oo dad guranaysay aan hees u soo saaray uu soo bixi doontaa mar dhow muusigeedan uu tuntay aadan u salaamay asagana saaxiibkayga marka way jiraan marka laxamo badan oo aan sameeyay heesahaga aan qaadidna kuwa alxama u sameysay heesayga aan qaaday waxaa jirta hadda yarta muxuu ahayd yaa u sheegay iyo sidoo kale heestan tiraahday inantu waa taan jeclahay oo kale laxanka aniga soo qaatay heesaha inta badan oo dancer kale iyo hees kale la yiraahdo ayadana waa badan yihiin heeso badan oo aan sameeyay waa tahay dhankii kalimaha sugaanta aynu ku nasaneena hadii aan soo qabto cafis baan ka doorbida kullee heesaha saameynta kugu leh waa sidaan arkay heestaas eredeedii laxanka heestaas waxaa sameeyay abwaan Cumar Baarqab abwaan aad ugu qaali ah halkan aan ka salaamaya waxayna soo gaartay anigoo Malaysia jooga heestaas city markiina qisi qabsatay oo igu dhacday walow aan wax badan qari jiray laakiin programkan kii ku horeeyay ku soo sheegay marka heestaas city laxankan waxaa sameeyay أسد إسماعيل أسد ديري فنان عادي يقالي ملحميست عادي يقالي عادي وسلامي موسيقى وحاتم منين مقن وأريد اللي هذا مركز هست سداسة كنت مدعينا وتهاي هست سعفي سيان إذن كقدح بحياة بلدي بين السوق الصلاة واني برامج كيني خيبيسي كحري
waa tahay halkaasaan kaga soo laabanay heestii cafis kole dhanka masraxiyadana aad ugu fiican tahay. Thank you. tan kale waxaan rabay qadarow inaan ku weydiiyo daansiga ma intii iskuul tagtaa soo barat maya dancerka waa sidan kuu sheegay waxaa jira qolo jaamka la yiraahdo waagii hore aad iyo aad ayagan marka xaggaasaan ka keenay aniga iyo waa badanahay tiimka DJ Fresh oo ku jiro Snake Dairje Adnan markii tiim dhan waxaan ayaga macallimiin isku soo macallinkeen weyn Adnan waa laakiin Adnan waa tahay marba isiri cunugii intii iskool uu tagay malaha qalan jabin shahaado ka watahay balweedii garadkiis maya wallahi tiimkayga raggaas ay ahaayeen rag aad u xoogan aan markii magaalada haystay marka ayagan kulli ka dhaxlay dancerka waa tahay heesaha lamaanaha sidee isku tihiin waa qaaday hees lamaane waxaan filayaa inaan hadeertaan midkii ugu dambeysay Sacdiye iyo aan la soo qaaday qaaliladan mid kale oo ka horeyso qaalina aan la qaaday ay jirtay walow ay jireen gabdho kale aan la qaaday aan xasuusin karin hadda balse heesii hore mid kamid ah fartuun birima la qaaday أسلوب بدني أما بدني سيدي وبيحي ودقوم بدني تاسعي صحيح واتا دنك هيساها aad qaado hadaan u soo laabano Kenya wadaniga kaalinta suugaaneed ee aad ugu yar dhankaaga waa hadda ma ku qorsheysan tahay in kala bar heesaaga noqdaan dalkaygu hadda waa soo qaaday wadaniga ka mid tahay Muqdisho miyaan ka maarmaa Muqdisho cadeyn waa soo qaaday waxa ay dhiman oo kaliya calanka inaan xoojiyo hadda waliba si qurux badan aan u soo duuba rajeynaya mardhow insha Allah heesi Muqdisho aan rabaa su'aalo badan oo ka taagan dhanka laxanka adiga iskale ana iskale balse hormones happy battery ee u laxan sax waay heestaasi u laxan eg tahay waan jeclaaday ayadoo muddo soo bixin oo qofkii ugu horeeyay maybe I think uu subscribe gareysna ana wahay sababtoo inta badan heesaha ajaanibtan waa subscribe gareeyaa kuwa Soomaalidana sidoo kale marka inaan wax unique ah mar walba dadkayga u keenan jeclahay saa awgeeda marka wax unique ah ugu sameeyay Soomaalida laxan ay la qabsan karaan unique-na walow Ethioopianka anagana dhaxlaan heesayna ay xadaan si wanaagsan Afrikaankana ay xadaan marka anaga inaan qaadana ayagana maxaa noo diiday aad sameyn karnaa si wanaagsan hees on aan daawadayaasha jeclaan lahaa inaan wax ciyaaraya yaa u sheegay isaas naftirkeeda iyada xataa dhanka laxanka iyo muusigada way bedelantahay waa wax unique ah oo bedelan si wanaagsan marka fanaanka Abuush qaadaan leeyahay Abu Salaq heestan waxa jira walaal heestaasi soo qaadeen ayaga intay dhacdeen keenay gardaran xitaa waa aragtay heesa badan inay xadeen jiraan Ethioopianka marka anigana waan ka soo celinahay markoodan dhahay keena si wanaagsan xaqa idinku maqan iska keena dadka ay mugdi uga jirtana waxa u cadeynaysaa inay heestaas laxanka weelada laakiin miraha waa Soomaaliga waxaana ma adduunka laxan Ethiopian qaata Soomaaliya qaadata Afrikaan qaata waxa qaata American qaata laxan waxba ma keeno laakiin waxa keeno heestiyo sideeda iyo miraheeda hadda la timaadid qof kale taas ayaa qalad kugu noqon karaysa aaminsanay laakiin laxan heesayno la yaqaan xadayaan Ethiopian Kenya gardaran heesa badan jiro diriye wali qof qaada xitaa ma jiro walow ay naagtahay xitaa waxaan jeclaan lahaa inaan ani soo sameeyo heestaas si wanaagsan oo dhankii ragga u bedeshay waa hees aad u fiican oo hidiga dhaqan ay ka hadlayso marka waa sidaas taas hay heestii yaa sheegay daawadayaasha okay Yo sheegay indareen ihero qalbiga ii dhaqaaday aragtida indhaha ay u tahay farxade indareen ihero qalbiga ii dhaqaaday aragtidana indhaha ay u tahay farxade ogsoonow inaan yahay ogsoonow qalbiga diga dago ogsoonow inaan yahay هذا مالمان جعل با إيهو بيريهو نو فرحتنا إيموجيه
ogsoonow inay yahay inay tahay ilays u sheegay yartuye iftiinkii nolosha ayaaduna tahaye inay tahay ilays u sheegay yartuye iftiinkii nolosha ayaaduna tahaye hargeyso andagayna 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 muqdisho andagayna 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 garowe andagayna 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 jigjiga andagayna 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 in udgoon ideeqdo muuqada waacayahay aniga asiibayo muuqaba jacaylabe in udgoon ideeqdayo muuqada waacayahay aniga asiibayo muuqaba jacaylabe ogsoonow inay yahay ogsoonow ogsoonow qalbigaadiga dago ogsoonow inay yahay hadaa maalmaan jacaylba igu beeray huno farxadna ii muujiye ogsoonow inay yahay inay tahay ilays u sheegay yartuye iftiinkii nolosha ayaaduna tahaye inay tahay ilays u sheegay yartuye iftiinkii nolosha ayaaduna tahaye kismaayo andagayna 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 baydhabo andagayna 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 jawharna andagayna 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 gaarisa andagayna 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 waa tahay bal gaarisay isdiyaari walaa idinku soo socdaa so si kenya wanaagsan heestan ee mahduud ayaa iskala xiray thank you so much waaba iska garata aad iyo abwaan mahduuday halkan aan ka salaamayay salaan qaali ah u gudbinaya laxankan waataan kuu sheegayo aad iyo waa jaf aad iyo Ay, warkii laakiin mahad adiga muusigana ma u ustaad geys Ujeer Cajami yaa tumay halkan Ah, aan Ujeer ka salaamaya Cajami. isaga heestan adiga ma u geystaa abwaanka ha aniga u geystay muusigiistaha Ujeer Cajamiba iyo abwaan mahduuday oo ku Sa. dhacay erayada iyo bedel heestan isaar siman sababtoo ah hees aad ii soo jiidatay ahayd kolleyna dee wax badan aan ka rabay inaan sameeyo wixii aan sameeyeyna finally waan ku guuleystay waan sameeyey si wanaagsan waa tahay dhankii waxaynu galaynaa waxyaabaha inta badan aad ku meeldaalatid kolley filimaanta ka mid ah favoritekayga filimaanta waa American hollywoodka ha waxaa kusii Actorada? dheer timekayga kale actarada oo oo hollywoodka Hollywoodka yes ani waxaan taageeraa John Smith nin ilahan waagi horena Tom Cruise aan taageeri jiray waa tahay Yes. haye waxyaabaha kale aad ku meeldaalatid gameka iyo ciyaaraha ka mid ah kubadda PlayStationka PS4ga sidoo kale gymka ha iyo kubadda cagta Aad iyo oo aad. mar aan iska galo si wanaagsan waa tahay dhanka ciyaaraha xataa iyadu naftirkeeda kooxaha taageertaa kooxaha igran kooxahayga aniga number 1 iyo ah kuley dadka qaarkood way wada garanayaan adigana haddaa ogeyn waa ku ogeysinaa waa FC Sigan. Barcelona reer Barca iska ahay ma guuro meelna uma dhaqaaqo si wanaagsan ayadan iska degana Sa- ilaa weli marka waa kaas laakiin kooxa kale mala taageertid may waxaa jirta hadda Talyaaniga oo hadda aan u guuray Sa. Ronaldo oo awgis aan ugu guuray laakiin Ronaldo markuu Real la jiray ma taageeri jirin sababtoo ah cilada xagga Real Madrid ah si wanaagsan laakiin hadda markuu Juventus aaday Juventus aan taageeraa horyaalka Talyaaniga Ingiriiskana waa Liverpool ha waa tahay maadaama aad dhanka ciyaaraha kolley wax badan oo sheegto showgii gaalkacyo aad ku qabateen ka waran adiga dareen ahaantiis inkastoo mar bulshada baraa bulshada warbeen la soo geliyahayd in qadar la kaxeystay ama la dilay oon wax iska dhex wadaayeen wallahi horta Soomaalidan Ilaahay khayr ha siiyo kulli waad garan kartaa dad waxa iska jira aan wax amal lahayn iska dhex fadhiya social media si wanaagsan si qaladna u isticmaalaya sa aniga qadar ahaana gaalkacyo inaan ka degta ama aan aado fikrad aniga gaar ii ah igu soo degtay sababtoo ah
markii waxaan rabay inaan tago Turkiga oo aan aado Sax. waxaan ugu baaqday in dalkii meelihiisa qaar Soomaali ay degan yihiin si wanaagsan una baahan yihiin fankii in la gaarsiiyo shacabkii la maaweeliyo sax marka haddii aan tagayna wax cilada hadda aan kala soo kulmayna ma jiraan shacabka si qurux badan ay soo dhaweeyeen dadkoodii showga sida YouTube ka aragtay si qurux badan u dhacay laakiin waxaa jiro warxumo tashiil oo ah inay si qaldan wax u fasinaan rabay laakiin ku fashilmay sax sababtoo maanta haddii aan dhaho ama Turkigan aada ama Nairobi qof maanta idu hadal qaadaya ama ka fikiraya meel xun iyo ma jirto laakiin markaan tago maxaa la yiraahdaa goboladeena Soomaalida ee degan tahay qof walba wuxuu isku dayaa inuu been abuuro been sheego laakiin waxa ku dhihi lahay qof walba oo muwaadin ah qalbigiisana nadiif ah asaga dalkiisa dhisan karo dal walbana waxaa horseeda dad wanaagsan dal walba waxaa horseeda dad wanaagsan marka aniga shacabka maadaama aan miyaarad u ahay in aan tusi karo maanta meeshaas in la tagi karo wax lagu soo qaban karo in aan tusi karo dadka ka soo jeeda inay dad nool yihiin dadka jecel yihiin fankina la sii kordhin karo goboladii la gaarsiin karo fanaaniinta qaarna waxaan kula tali lahaa ama dibadda ha jiraan ama dal ha joogaan inay meel walba oo kamida Muqdisho ama Soomaaliya oo dhan inay gaaraan fankana inay xoojiyaan ay gaarsiiyaan si wanaagsan marka laga soo tago showgaaga galkacyo ku qorsheysantaa gobolada kale inaan bandhigiyo faneed si wanaagsan si wanaagsan waa i qorsheysan tahay laakiin hadda waqti aan dhihi karo budgetkayga waqtigaas aan tagi karaa ma sheegi karo laakiin waxaan aaminsanahay meel walba ee Soomaali joogto ay naqataba inaan lugta gaarsiin doono ama aan tagi doono warxumo tashiil iyo waqti lumiskoodana yaa loo joojiyay waata rajada fanka aad ka sii leedahay ka waran way iska gaaban tahay waqtigaasna ma dhihi kara hadda wax aan hadda inta ku sheegi kara maahan laakiin inay iska gaabantaan ku sheegaya kaliya oo bajada kale ay qorsheysan yihiin si wanaagsan markii oo fanka laga soo tago maanta ama ganacsi ama qof kale ina wax aad ku bedelato jeclaan lahayd ma jirtaa waxaan ku bedeli lahay way jiraan hadda oo fanka hadda markaan waqtigeyga u soo dhamaado wax aan sameyn doono waa i qorsheysan yahay laakiin haddii aan private-ga la soo baxo kale waxay iga naqanaysaa kood banaanka iga yaala marka taas i qorsheysan insha Allah waa sahay dhankii kaalimaha suugaanteenu ku laabaneynaa anima heestaas waxaa sameeyay Abwaan Daahir Cali Sow aan halkan ka salaamaya abaan aad u qaaliya laxankan isla asaga saaray muusigana waxa uu tumay Jeer Xajami heestaas ayaan idinkaga dhex bixinaaniyo khadar aragaaga qurxoon bay indhahaygu jirshaano arkasta yaabeenkii aqalkaaga hortiisa iyar laygama waayo adimaan ka aan karayaa adimaan ka aan karayaa aragaaga qurxoon bay indhahaygu jirshaano arkasta yaabeenkii aqalkaaga hortiisa iyar laygama waayo adimaan ka ahaan karayaa adimaan ka ahaan karayaa animaan ixtiraami jacaylka animaan idikaaga baxaya animaan balanteeni adkay adimaan ku iloobi karaa adimaan ku iloobi karaa animaan ixtiraami jacaylka adimaan idikaaga baxaya animaan balanteeni adkayn adimaan ku iloobi karaa adimaan
tiraabtay eragaad ku tiraabtay weligay ma ilaabo weligay ma ilaabi doone weligay ma ilaabi doone ayantaynu kulmaynay agagaarka fiyoore intahaad igu eegtiyo eragaad ku tiraabtay weligay ma ilaawo weligay ma ilaabi doone weligay ma ilaabi doone animan ixtiraami jacaylka animan kaaga baxaya animan balanteeni adkayn adiman ku iloobi karaa adiman ku iloobi karaa animan ixtiraami jacaylka adiman kaaga baxaya animan balanteeni adkayn adiman ku iloobi karaa adiman ku iloobi karaa anima ku iloobi karaa waa tahay haddii aan dhankii su-aalaha usoo laabno daawadayaal waxaad nagala socotaan telefishinka qaranka xarunta dhexe ee magaalada muqdisho uu ku yeelanayaa TV-ga waxay hor fadhiya Qadar Ibrahim Qadar Kenyo oo barnaamijka fanka iyo suugaanta maslaxan toddobaadkan saaran qadar gabagabadii barnaamijkeenu ku sii shaqeynaa fanaaniinta ama abwaaniinta ee kuugu dhow ee fanka waa kuwe thank you dhammaan horta waa ii wada dhow yihiin laakiin waxaa si qaasi igu dhow abwaan Cumar Baarqab aan ku bilaabo abwaan aad igu qaaliya sidoo kale abwaan Mahduuday waxaa kaloo sii dheer abwaan Daahir Cali Sow dhammaan abwaaniinta way wada sameeyeen laakiin inta ii dhow aan saaxiibada nahay waa intaasiti aan xagga muusigana waa ustaad Subxaanyo waa asagana sidoo kale iigu dhow iyo Ujeer Cajami oo saaxiibkay ah iyo muusikiistayaasha kale badan ayaguna dhamaantooda aan salaamaya fanaaniintana hadii aan ka soo gudbo magaalada Muqdisho waa Maslax Cabdi Taaliil Warsame iyo saaxiibkayga Cumar Jaaja oo aan halkan ka salaamay fanaaniinta iigu dhow iyo Mahad Meesar sidoo kale saaxiibada aan nahay iyo Libato dhamaan aad u salaamaya ayagana oo kuwaas markaa kuwa kale shishay xagga dhankaasna waa saaxiibkayga Nabil Bulle iyo Guuleysinba Maxamed BK oo aan aad saaxiib u nahay asagana iyo fanaaniinta kale dhamaantooda aan salaamaya waa taa anigana waa kula salaamayna iyagana dhamaantood inay ka gudoominayaan rajeynaya waa tahay qadar kolay SNTV ayaynu ku wada sugannahay fanaaniintii hore mid kamid ah heesooda haddii aad dib noo xasuusid codkaaga maadaama gabagabadii barnaamijka iyagoo ay mudan yihiin in la xuso waa diyaar hees jecel ama daadis jecelaneed si aad jeceshaa kolay dhanka calaalka u badan tahay thank you diyaar waa markaa taasaan ku dhufan lahay mudaba arimayga siyaa surmiya baan qabaa sirtaydii baabaryahan samada lagu maalayaa jacaylkaadii la sidee xamdii maxaa xanibay maxase cabadii furnaa iyana xidigaha dul sudhay namalaha walagu sitaa suldaarada haygadayn siftiyo ilagada warmaha aminay seexu hakicin siftiyo ilagada warmahoy dabadeed seexu hakicin si xusab fanaanka qaadane Cumar Dhuule Cali Allah u naxariistay aad baan u salaamayaa waxaa kaloo halkan nagula sugan ayadana Muqdisho joogta Qadar Cumar Dhuule Cali aan yiraahday sidoo kale Hodan Cumar Dhuule Cali waan salaamayaa Qadar Cumar Dhuule Cali ayadana waan salaamayaa walow aan isarkin laakiin waan rajaynayaa inaan kulanno waan fadhigeeda ku booqdo hadduu gaar barnaamijkan aad baan ku soo salaamayaa habo thank you so much marka
وكاس أضي واتهاي إن قبل كسوغا نحن بل هل يلا أصحاب معنا والد معنا horta waxaan ka bilaabayaa marka hore first time waalidkayga aan aad ku jeclahay hooyadeeda Faa Cabdi Jimcaale iyo aabahayga Ibraahim Cumar Maxamuud aan ku bilaabayaa iyo familygayga inta kale oo dhammaan dal iyo dibad joogtay ee daawanaysa qaraabada iyo qoyska iyo asxaab iyo ehel intaba macala TV-ga dhammaan saaxiibadeeda ka wada shaqeynaya iyo agaasimayaasha iyo shacab weynaha Soomaaliyeed anigoo aan kala reebin dhamaantoodaba salaanta islaamka idin ku salaamaya yes si wanaagsan waa tahay waxaan jeclaan lahaa inaan ku soo gabagabeeyo inaan liita awgaan may inantu waa jeclaan aan jeclaan lahaa barnaamijkeena ku soo gabagabeeyo erayada iyo laxanka iyo muusikada heestaasi sidaan hore kuugu sheegay hees la qaatay ee daan soo celiyay inantu waa taan jeclaa waxaa naga dhacay Ethiopian waan ka soo celiyay heestaasna waxaa sameeyay abwaan aan mar ila boorka ku kulanay abwaan Ahmed inuu ugu dhahan jeclahay hadduu i daawanayo halkaan aan ka salaamaya waa abwaan aad u weyn igu yiri heestaasna anaga sameeynay oo Soomaali ee waxaynu ku jirto riwaayad hore oo la sameeyay riwaayadda anigu waa iga daaweyn tahay marka heestaas waxay ahayd hees gibley iyo iskugu jira aan ciyaaro marka sidaas oo ugu talagalay Ethiopian soo qaaday waa noogu soo dhiciyay anna waa keenay nin idin dadaalaya nin aad idin ku dadaalaya ahay marka thank you so much oo fankiina dhinac ka ilaalinayo in la bilna qaysto waa tahay guud ahaan inta ay ku saafmeeraya barnaamijkii fanka iyo suugaanta toddobaadkan uu marti u ka ahay Qadar Ibraahim Qadar Kenya oo kamid ah xidigaha Muqdisho ugu cadcad inta aynu ka kulmi doono toddobaadka dambe iyo barnaamij caynkan oo kale ah waxaan aad ugu mahadcelinayaa soo saaraha barnaamijka Axmed Cabdiwali Carab ama DJ Fresh anigoo Xamdi Cabdullaahi Xuseen oo tabiyaha ah dhanka farsamada oo Muuse iyo Daahir Cabdiwali waxaana ka marnay Daadir Haarun oo dhanka kaamirada hadba dhinac nala amba qaadaya isla farsamadiina waxaana ka maqneen Axmed Cabdiwali Carab DJ Fresh aad bana asagana ugu mahadcelinaya waxaana idinkaga tagayaa inantu waa taan jeclaa iyo qadarkeeyo waxaa ii darnaayo damac igu abuura idordoorinaaye waxaa ii darnaayo damac igu abuura idordoorinaaye darajadii naftayda ay dadka tahay ka duurtahay dacadigu dareemay darajadii naftayda ay hoy dadka tahay ka duurtahay dacadigu dareemay waxa jira walaal waxa jira walaal idan liita awga waxa jira walaal waxa jira walaal idan liita awga oo heede ibilo wayaabale oo heede inantu atan jalaadiga oo heede ibilo wayaabale oo heede inantu atan jalaade wayaha adduunko war ma qaba jacayla kula dibad wareegay wayaha adduunko war ma qaba jacayla kula dibad wareegay cid kastoo wareystaba warsan ima sheegayo wigu dhaga adkaada cid kastoo wareystana warsan ima sheegayo wigu dhaga adkaada waxa jira walaal waxa jira walaal idan liita awga
وحجرا ولا وحجرا ولا إذا اللي تأوغا هيدي يبيلو ويا بالي هيدي إن أنتو أتنجلا عاديا هيدي يبيلو ويا بالي هيدي إن أنتو أتنجلا عادي هيدي يبيلو ويا بالي هيدي إن أنتو أتنجلا عاديا هيدي يبيلو ويا بالي هيدي إن أنتو أتنجلا عادي